sida uu walaalkay sheegay Maxamed Mubarak insha Allah taala waxaanu idin soo siyaartay Ilaahay dartiis baan idin soo siyaartay awal waxa laga yaabaa sida walaalkay sheegay inaanu xumaanta isku garabsano marka insha Allah taala walaalayaal khayrka ayaynu isku garabsanaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin Ilaahay baa mahad iska leh Ilaahay nimcadana siiyay barwaaqada aniga iyo Axmed khayrna isku kaayaysimay ee colkii kale naga soo saaray alxamdulillaahi rabbil caalamiin Ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka hore mar labaadka waa la xusaa qofka ku duubaya kabrada marka ugu horeysaba waxa naga duubaya halabuur cawl bile waxa ila jooga walaalkay Axmed Khayr Axmed Biif baynu oran jiray marka hore ana istimar walba waa xusuus way gashaa waxaan sidnaa khayr markii horeba de waxa shadaadinta waa naga dhageysan jirtay laakiin khayrka faafiya وعي قلنا بنسدنا محاضر بنسدنا وحقروح بدن وكفر حسن ما تينا وح ونكسن نادينه وبالشيء ذي والشيء إنه أدبنا وكفر حسن ما شاء الله ولا الكيم با وحين قال يا محاضره حنقول لنا قولت ما نتجمعها قلبت تجمعها هدي إلهي هذا صدق دي بركم كسرات لقى صبحه وينو قولت كاليا أو خيرك سواء عمرة مركي هرب وأنه يمشيتنا خيرك نوجو كاليا وأن سودوينه وحنا أكسب بنو سيدنايه نلقاته إما كانوا حد بيكون سودويني ولا الكي ما شاء الله عسي شرفكم ولاده شرفكم كنا هاتو خيرك سواء عمرة خيرك كاليا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال سيدا أولالك شاقي محمد مبارك إن شاء الله تعالى وحنو إدن سو سيارتي إلهي درتي اسمان إدن سو سيارتي إيو إنان أصحاب تيدي إيو صاحب ديدي هوريتو عن وحير لقاتو runtiina aanu isu sheegno khayrka iyo maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqiisa toosan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala nawaafajiyay aniga iyo asxaabtaydii horeba marka walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu quraankiisa ku leeyahay wa ta'aawanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wa macnaheedu yahay isu kaashada khayrka iyo wanaaga iyo Allah ka cabsiga isu kaashada ha isu kaashanina dambiga iyo xadgudubka ha isu kaashanina marka walaalayaal insha Allah ta'ala dhamaanteenba waxaan ila ka rabaa inaynu khayrka isu kaashano wanaaga isu kaashano Ilaahay dartiis maartay aynu isu soo booqano Ilaahay waxay adduun iyo aakhiraba ay dani inoo ku jirto aynu isxusuusino wixii adduunka maartay intaynu joogno in khalkhal gelinaya oo aakhiradeenni in ka mashquulinayana inaynu isaga degno wixii in ku boorinaya wanaageena iyo khayrkeena iyo horumarkeena iyo sidii Rabbi subhanahu wa ta'ala u raali inoo ka noqon lahaa adduun iyo aakhiraba inay ku jirto diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu qaadano dariiqii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aynu ku qaadano asxaabadii iyo taabiciintii iyo sidaas laga soo gaaray halka jidkaas inaynu maro marka sidaas awgeed waxaanu insha Allah ta'ala rabnaa wanaaga iyo khayrka inaanu isku garabsano awal waxa laga yaabaa sida walaalkay sheegay inaanu xumaanta isku garabsano marka insha Allah ta'ala walaalayaal khayrka ayaynu isku garabsanaynaa sida uu walaalkay sheegay insha Allah muhaadaradaasi waxa nagala soo qayb gali doona mashaayikh waaweyn oo ka mid yahay Sheikh Ahmed Eid xafidahullah Sheikh Abdullah Barbarawi xafidahullah iyo dad kale iyo asxaab kale oo fara badan oo ka mid yahay Abwaan Yusuf Shaacir oo runtii ahaa abwaaninta Soomaaliyeedna kamid ah haddana dhamaantaya aanu khayrka isku garabsanayno marka insha Allah ta'ala walaalayaal insha Allah guuleed hotel maalinta jimcada ah ba insha Allah ta'ala hadii alla na gaarsiyo inoo ballama halkaas ayaanu insha Allah ta'ala dhamaanteenba aan ku kulanno wixii khayra aan isu weydaarsano wixii insha Allah ta'ala adduunyada iyo xaalkeedana aan isaga degno meesha
aakhiran lagu dambayn doono waa aakhira ayaa badan adduunkuna waa wax yar oo kooban oo waa ka tegaynaa marka insha Allah taala dhamaanteen khayrka Allah ina waafajiyo marka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh